kulanti wacan wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena ee xulka wararka waxaad ku soo dhawaataan caawana qodobada wararka ugu waaweyn caawana saaxiibeel qodobada wararka aad ku daawan doontaan janaalkeena xulka wararkana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo ogaaday qoraal uu xaaf xalay uu soo saaray xog badan oo arintaas idinkaga hayo qaabka dhuusamareeb maanta lagu soo dhabeeyay wafdiga hogaaminaya Ra'iisul Wasaare Khayre xilli xiiso siyaasadeed ee ka taagan tahay Galmudug Sacuudiga oo arin muhiim u ah Soomaaliland u hoosgeeyay Soomaaliya maxay tahay arintaasi waa imisa lacagta loo ballan qaaday madaxweyne xaaf iyo dowladda oo la sano ku qancinaysa wada hadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo dib u bilaabanaya iyo dalka lagu qabanayo Farmaajo oo ka hadlay isfaham la'aanta dowladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleedyada wali ka taagan iyo qabanqaabada lagu soo dhabeeyay madaxweyne xaaf oo caawa ka soconaysa degmada Cadaado xilli halkaas ay gaareen xildhibaanada ugu badan ee mucaaradka Soomaaliya ka tirsan u diyaar garooba qodobadaasi kuba kale inaad ku daawataan wararkeena ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka intiisa kale daawada hadaad ku cusubtahay janaalkana subscribe dheh qaybta hoose commentigana nagula wadaag aragtidaada waxaase ka hormarayna warbixinadii hordhaca ah aad daawateen warbixinta ugu horeysa madaxweyne Farmaajo iyo waliba Fahad Yaasiin ayaa ogaaday qoraal xalay goor dambe uu soo saaray hogaamiyaha Galmudug oo ku saabsanaa marxaladda Galmudug markan ay wajahayso xiisada siyaasadeed ka jirta Galmudug ayaa markan waxa yeelatay wajiyo kale oo siyaasadeed oo ka duwan xaaladii markii hore lagu ogaa janaalkeena YouTube-ka ayaa waxa uu ogaaday xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay wax ka ogeeday qoraalka uu xalay uu soo saaray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf sida ila ku dhow Xaaf u xaqiijiyeen janaalkeena waxa uu madaxweyne Farmaajo waliba taliye ku-xigeenka hay'adda NISA Fahad Yaasiin ayaa u qoray warqad uu soo saaray Xaaf waxaana labada dhinac dhaxmaray isfaham iyadoo oo mar ugu dambeynna madaxweyne Xaaf uu soo saaray warqad uu ku shaacinayo waqtiga ugu dambeeyay ee doorashada dhici doonta dowladda Soomaaliya oo isticmaalaysa dooqeeda koowaad iyo dooqeeda labaad oo kala ah ahlu sunna oo awood ku haysa Guriceel iyo Dhuusamareeb iyo awoodda labaad ee madaxweyne Xaaf dowladda ayaa Xaaf kula heshiisay in uu yahay dooqooda labaad haddii uu ahlu sunna diido in dowladdu ay ku wareejiso ciidamadeeda isla markaana halkaas la geeyo ciidamada ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya haddii ahlu sunna diido qorshaha dowladda waxa ay ku bedeli rabtaa madaxweyne Xaaf oo doorashada qaban qaabin doona kana dhici doonta magaalada Cadaado sida ila xogaal ay noo xaqiijeen haddii se ahlu sunna ay aqbasho sida ay dowladda dhexe wax u rabto madaxweyne Xaaf ayaa qayb ka noqon doona caqabadaha waaweyn ee markan dowladda ay wajahayso waliba sidii dowladdu ay kaga tashan lahayd mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweyne Xaaf dowladda federaalka ayaa ciyaaraysa siyaasad heerkeeda ay aad u sareyso waxaana marka hore ay ka shaqeynaysaa in ay kala disho Xaaf iyo ahlu sunna si ay labada dhinacba ay heshiisyo kala gooni u kala saxiixaan dowladda war saxaafadeed uu soo saaray madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa ay taageereen go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ay ku qaban qaabeynayso doorashada madaxtinimada Galmudug ee la qorsheynayo in Dhuusamareeb ka dhacdo sidoo kale war saxaafadeed asna lagu shaacinayo waqtiga lagu qabanayo doorashada ayaa asna waxa uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Galmudug oo la shaaciyay in 4 July 2019 in la qaban doono doorasho madaxa xukuumadda ayaa dhamaantoodba iyo dadka ku nool shacabka Galmudug waxa ugu baaqay inay taageeraan doorashada xukuumadda Soomaaliya ee qaban qaabeynayso ee dowlad goboleedka Galmudug isla markaana ay u istaagaan midnimada wadajirka iyo ilaalinta heshiiska madaxtooyada Soomaaliya ay kula saxiixatay mideynta Galmudug maamulkii ahlu sunna waa ka warbixintaas haddii halkaan kaga gudubna qaybaha kale wararkeena ku jirana daawadayaal waxa kamid ah qaab sidee ah ayaa maanta isla magaalada Dhuusamareeb lagu soo dhabeeyay xubnihii horkacayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta magaaladaasi gaaray wafdi oo horkacayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta ka ambabaxay magaalada Muqdisho waxaana ugu dambeyn uu gaaray magaalada Dhuusamareeb Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wafdigiisa ayaa waxa kamid ah xubno ka tirsan golayaasha dowladda saraakiil waxa kale oo garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhabeeyay xubno sarsaro ahlu sunna ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo xubno kale oo maamulkaasi kamid ah booqashada Khayre uu ku tagay Dhuusamareeb ayaa ka dambeysay markii dowladda Soomaaliya iyo waliba madaxa ahlu sunna ay saacadihii ugu dambeeyay ay gaareen heshiis
ay ku gaareen magaalada dhuusamareeb. heshiiskaas oo qeexaya in la qabto doorasho bartamaha bisha July ee nagu soo aadan. Kheyre ayaa caawa ku hoyanaya magaalada dhuusamareeb isagoo halkaasi kulamo kala duwan la qaran doona hogaanka ugu sareeya ee ahlu sunna ayna ka wada hadli doonaan daadejinta xiisada siyaasadeed iyo waliba arrimaha kale ee galmudug ka jira. qodobada kale ee wararkeena ku jirana waxaa kamid ah dowladda Sacuudiga Carabiga ayaa arrin muhiim ah Soomaaliland u hoosgeynaysa markan dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba warbixintan ayaan eegi doonaa sida Sacuudiga markan ay ugu shaqeynayso in maamulka Soomaaliland ay hoosgeyso dowladda Soomaaliya. dowladda Sacuudiga ayaa shuruudo hor dhigtay maamulka Soomaaliland taas oo lagu xirayo xoolaha Soomaaliya ee sanadka loo dhoofinayo dalkaasi Sacuudiga. dowladda Sacuudi Carabiga ayaa Soomaaliland u dirtay warqad ay ku sheegayso in warqad caafimaad oo xoolaha Soomaaliya ee xajka sanadkan ay bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya inay la timaado maamulkaasi Soomaaliland. warqadaas oo ka soo bixi doonta xafiiska wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya inaysan aqbalin go'aanka dowladda Sacuudiga ee la xiriira warqadani ka soo baxday kuna dalbadeen in dowladda Soomaaliya warqad ay ka soo qaataan. xoolaha Soomaaliya inta badan waxa laga dhoofiyaa dekedda magaalada Berbera oo ay maamusho Soomaaliland waxayna bixin jirtay warqad caafimaad oo xoolahaasi ah. inkastoo xoolaha ay malaayiin ari iyo geel ay u badayin kuwa loo dhoofinayo dalka Sacuudiga ayaa waxaa hadda dowladda Sacuudiga ay go'aansatay in xoolahaasi dowladda Soomaaliya la xiriiriyo lana keeno warqad dowladdu ay soo qortay gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ka soo baxday. lama oga go'aankan sida Sacuudiga uu saameyn doono xoolaha laga dhoofi doona dekedda weyn ee magaalada Berbera ee loo dhoofiyo dalkaasi Sacuudi Carabiga. Soomaaliland ayaa hadda waxa ay wajahaysaa laba daran midkood dooro oo ah inay hoos tagto Soomaaliland Soomaaliya iyo in malaayiin dollar oo kasoo gali jiray xoolaha inay iska dhaafto lacagahaas oo ay sanadkan ay weyso. qodobada kale ee wararkeena ku jirana waa kamid ah waa imisa lacagta loo ballan qaaday madaxweyne Xaaf iyo dowladda oo ayna dhankeeda ahlu sunna ku qancinaysa in qayb ay ka noqoto heshiisyada markan la doonayo in doorasho lagu qabto deegaanada Galmudug. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa la sheegayaa in hadda uu saldhigan doono magaalada Cadaado lagana sugayo halkaas in dowladda dhexe ee Soomaaliya uu magaaladaasi kula kulmo taasoo ka dhigan in ay kala wareeg sameyn doonto xaaladda siyaasadeed ee Galmudug iyo waliba isbedelada ku imaan doona xaaladda guud ee dhanka siyaasadda ee Galmudug. dowlad goboleedka Galmudug ayaa hadda waxa uu daadegayaa inuu helo dhaqaale badan horumar la sameeyo iyo waliba in dowladda Soomaaliya halkaas ay ka abuurto mashaariic dhanka shaqo abuur ah oo loo sameeyo dhalinyarada ka soo jeeda Galmudug. lacagta malaayiinka dollar uu qaatay madaxweyne Xaaf ayaa waxa ay ku qasbaysaa in dhabar jabin uu ku sameeyo maamulkii ahlu sunna oo markii hore uu la shaqeyn jiray dhuusamareeb. waxaana ila xogaale sheegay in madaxweynaha markan uu ku qasbanaan doono inuu aqbalo doorasho ka dhacda deegaanada Galmudug. lacagta malaayiinka dollar uu qaatay ayaa ku qasbaysa Xaaf in markii dhabar jabin uu ku sameeyo maamulkii ahlu sunna uu ku sugnaa dhuusamareeb. ila muhiim ayaa waxay noo xaqiijin in Xaaf uu ogolaaday in dhaqaalaha uu qaato isla markaana dowladda Soomaaliya siyaasadeeda Galmudugna uu madax banaaneeyo. wafdiga dowladda Soomaaliya ka socda ayaa caawa ku hoyanaya magaalada dhuusamareeb waxaana wafdigaasi horkacaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. qodobada kale ee wararkeena ku jirana waxaa kamid ah wadahadalada la qorsheynayo Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa la filayaa in mar kale dib u bilowdo iyadana wadahadaladan ay noqon doonaan kuwa xasaasi ah labada dhinacna ay ka wada hadli doonaan waa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. waxaa la filayaa in maalinta bariya uu dib u furmi doono wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo wajigiisa koowaadna wadahadalada uu ka furmi doono magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. kulankan bari ee ka furmi doona magaalada Nairobi ayaa waxaa iska hor fadhiisan doona mas'uuliyiin ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland taas oo qayb ay ka qaadan doonaan qabanqaabada kulamada kale ee lagu xalinayo khilaafka labada dowladood waa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. wararkan helin ayaa waxa ay sheegay in wadahadalada dalka Kenya kaga furmaya Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dowladda Soomaaliya u matali doonaan wafdi uu hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Xirsi fursad ninka la yiraahdo.
halka dhinaca kale Somaliland ayagu ay wada hadaladaasi uga kaga qayb gali doonaan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xirsi Furtoon ninka la yiraahdo. kulankan ay isku hor fadhiisan doonaan mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa goobjoog ka noqon doona xubno ka socda beesha caalamka. xubnaha beesha caalamka ayaa waxa kamid ah Olgan Becker oo danjiriyo hore ee Turkiga u qaabilsanaa wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo wakiilo ka socda urur goboleedka IGAD oo uu wehelinaya mas'uuliyiin kale oo aan la ogeyn wadamada ay ka socdaan. si kastaba waxaa dhowr mar oo hore u fashilmay qorshaha la xiriiray wada hadal uu ku dhaxmari lahaa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. hase yeeshee ugu dambeyn hadda waxaa la filayaa in magaalada Nairobi ee dalkaas Kenya maalinta berri ay ku wada kulmaan xubnaha ka wada socda dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. qodobada kale wararkeena ka hareen daawadeel waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka hadlay isfaham la'aanta wali ka dhex jirta dowladiisa iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya asagoo si qoto dheer kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee maamulkiisu markan uu wajahayo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadeed dalka gaar ahaan isfaham darida ka dhex jirta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Farmaajo ayaa sheegay in uu cid kasta oo ka soo horjeeda aragtida dowladda ay tahay inay ka soo horjeestaan federaalka asagoo oo madaxda dowlad goboleedyadana federaalka Soomaaliya qaarkoodna ku eedeeyay in faraha ay la galayaan howlo aysan shaqo ku lahayn marka loo eego waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday sida khudbadda madaxweynaha uu ku xusay. madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xoogeeda isku geyn doonto sidii loo heli lahaa dowlad midaysan shacabkuna ay ku qanacsan yihiin. madaxweynaha ayaa maamul goboleedyada ka dalbaday in ay daadejiyaan shaqada iyo adeegyada bulshada ee loo igmaday. hadalka madaxweynaha ayaana ku soo aadaya xilli ay jirto xiisad siyaasadeed aad u xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxayso maamul goboleedyada. xiisadaas ilaa hadda aan wali wax xalal laga gaarin. ugu dambeyn magaalada Cadaado caaw waxa ka soconaya qabanqaabada xubnaha ka socda madaxweynaha Galmudug oo la qorsheynayo in magaaladaas uu gaaro laguna soo dhabeeyo. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa shalay iskaga soo baxay magaalada Dhuusamareeb oo safar dhanka dhulka iskaga soo baxay magaaladaasi soona gaaray magaalada la yiraahdo Godin Labe oo xalay ku weyday ilaa maanta halkaas kulamo kula qaadanay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada Cadaado. waxaana ugu dambeyn ila xogaalayno xaqiijin in madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo ila ku dhow madaxtooyada Galmudug ba ay shaaciyeen in ugu dambeyn madaxweynaha uu aqbalay in caawa uu gaaro magaalada Cadaado halkaas uu saldhig uu ka dhigi doono kana qabanqaabin doono doorashada. qabanqaabada inuu tago magaalada Cadaado ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maanta magaaladaas ay gaareen xubno badan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo u badan xubnaha mucaaradka waxaana horkacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari iyo xildhibaano uu ku jiro wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba xubno kale oo halkaas u gaaray inay xaliyeen xiisadan. lamana oga sida ay suurtagal ku noqon doonto in madaxweyne Xaaf uu halkaas madaxtooyo uu ka sameeyo Cadaado kuna wada holiisa shaqo inkastoo ila muhiim ah inoo xaqiijin in heshiis ay wada gaareen odayaal ka soo jeeda degmada Cadaado iyo waliba madaxweyne Xaaf ayna ku heshiyeen in madaxweynuhu halkan uu ku shaqeeyo kana qabanqaabiyo doorashada. hase yeeshee odayaasha ka soo jeeda Cadaado ayaa waxa ay wadaan qorshe la xiriira sidii doorashada loogu qaban lahaa magaalada Cadaado. gudahaan wararkii caawa aad ka daawanaysan janaalkana xulka wararka daawadeel halkaas ayaa kusoo gabagabeynaya daawad haddaad ku cusub tahay janaalkana subscribe dheh gambaleelkana furo qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada.